السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا كحنا يوتيوب channel كيغا كحنا فيسبوك page كيغا aad idin salaamaya naxariisi korkiina haato beriyaa kamida ayaa waxaa jira saxaabey dhulkaas ayaa waxaa ku badnaa ubaxyada iyo beero aad u qurux badan oo gabigooda ubaxyo dhulkan waxaa ku nooleyd gabadh la dhihi jiray Rosa ayaa ahayd gabar firfircoon dabeecad wanaagsan leh aad iyo aadna u qurux badan gabadhan ayaa ahayd mid quudisa xayawaanada siiba shimbiraha ay asxaab ka lahayd kuwaasoo markasta joogi jiray beerteeda gabadhani ayaa waxay lahayd beer aad u qurux badan beertanoo ka koobnaayeen ubaxyada noocyadooda kala duwan kuwaana ay waraabin jirtay si wanaagsan wayna jecleed beerteeda gabadhani waxaa jaar lahaa ama daris lahaa naag saaxirada naagtani weligeed lama ogaan wejigeeda dhabta ee saaxirnimada waayo markay soo baxayso ay kasoo baxayso gurigeeda waxay iska dhigi jirtay qof wanaagsan islaan waayeela naagtani ayaa ahayd naag aad iyo aad u xun una dabeecad xun naagtani waxay saaxiib ka lahayd qorigaasoo iyada wadan jirtay afka horena ka ah sidii maskoo kale qorigan ayaa ah isagana mid xun naagtana siiyo talooyin aad u xun naagtani Melanie la dhaho ayaa waxaa iyadana jecleyd inay abuurato ubaxyada laakiinse way ku guuldareysatay waayo markasta ubaxyadu waxay noqon jireen qaar qalalan marka ay fiiriso ubaxyada jaarkeeda oo ah Rosa ubaxyadeeda waxay u arki jirtay markasta ubaxyo aad u qurux badan markastana fareesha waana ka xumeed quruxda ay leedahay gabadhani iyo quruxda ay u sameysay beerteeda maalin maalmaha ka mid ah beerta naagta saaxirada waxaa kusoo duldegtay shimbirtaasoo heesaysay kuga soo socdo laakiinse nasiib xumo naagtii saaxirada ahayd oo jiifto ayaa heestii waxay ka kacisay hurdada waxaanay tiri shimbirtan xuni ay qalqelinayso sidee ugu dhiiratay inay hurdada iga kaciso waxaanay soo aaday dhankaasi shimbirtii ay waxay ku tiri adiga ayaaba halkan iisoo istaagayo waa ayna ku hujumtay usheedii shimbirtii ayaa noqotay mid dhaawaca laakiin naagtii saaxirada ahayd way ku faraxday inay dishay shimbirtii yarta ahayd waxaanay ku noqotay gurigeedii xilligaas oo ay kasoo noqotay Rosa dhankaasi keenta waxay arkaysaa wax walba waxaanay u qaadaysaa shimbirtii dhankaasi gurigeedii waxaanay daweynaysaa oo ay siinaysaa gargaar degdega shimbirtii reed waxay ku xirxiraysaa bandage cabaar ka bacdi maalmo ka bacdi shimbirtii reed way soo yar caafimaadaysaa waxaanay dhahaysaa Rosa aniga kuma sii deynayo ilaa aad ka noqonaysid shimbir aad u caafimaad qabto markaas waa ku noqon kartaa keyntaada shimbirta waxay isku bedelaysaa jinniyad aad u qurux badan waxaanay dhahaysaa jinniyadii aniga waxaan nahay jinniyada ubaxa waxaan sanad kasta maalin isku bedelaa shimbir laakiin maanta waan dhaawacmay adigana waxaa noqotay qofii soo kaxeeya ina xanaaneeya marka waxaan rabaa inaan ku abaalgudo wax walbo aad rabtid sheego gabadh ayaa dhahayso jinniyada ubaxa waxaan kaa codsan lahaa inaad anii siisid noocyo badan oo ka mid ah ubaxyada kuwaasoo ka kala keentay dhankaas iyo adduunka oo dhan markastana ubaxyada noqdaan qaar qurux badan isla markiiba jinniyadii waxay isticmaalaysaa gabadhii usheedii waxaana ku dhahaysaa hadda anigu waxaan ku siiyey quwadeedii oo dhan marka waxaa ka mid ah quwadahaaga in haddaad beerto ubax isla markiiba uu soo baxayo waxaana ku adeejinayaa shimbiraha si ay kugu keenaan meeraha ubaxyo kala duwan gabadh yareyd waxay dhahaysaa taas waa mid wanaagsan waana u mahadcelinaysaa jinniyad isla markiiba waa isbaabiinaysaa shimbirihii waxay sameynayaan in markasta ay gabadhi u keenaan miro kala duwan oo ubaxyo ah gabadhin halkaasay ku beerato ubaxyo aad u qurux badan keynteediina kasoo baxdo keyn aad u qurux badan ama beer qurux badan gabadhani ayaa ku farxayso beerta ay haysato waxaana mid markasta la dhacsan beerta ay haysato ubaxyada ubaxa ayaa intay soo geyso oo soo jarjarto ee waxay la wadaagi jirtay dadka jaarkeeda saa darteed dadka oo dhan way wada jeclaayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa magaalada waxaa imaaday nin garsooraha isagana jeclaa inuu markastoo yeesho
beer aad qurux badan oo ka samaysan ubaxyo. Wuxuu la yaabay beertan gabadha Rosa ee waxyada kala duwan ee quruxda badan ku beeran yihiin. Waxaanu dhahay weligay ma arag beertan ka qurux badan. Allah qurux ayay leedahay beertani, aniga oo kale ayay igu fiicnaan lahayd beertani. Rosa oo ogaatay arrintii ayaa waxay u keenaysaa garsoorihii ubaxyo, waxaana ku dhahaysaa aniga miraha waxa ii keeno shimbiro, meel kastana igaga soo qaado miraha. Waxa uu dhahayaa garsoorihii taasi mid dhici karta ma aha, taasi ma runba. Isla waqtigaas waxaa imaanayo shimbirihii oo wada miro kala duwan, waxaana u dhiibayaan Rosa. Garsoorihii ayaa arrintii rumaysanaya, waanu ka tegayaa meesha. Rosa beerteedii waxay ku soo baxday mid aad u wanaagsan, laakiinse hadalkii waxay dhageysanaysay naagtii saaxiradda ahayd, waxaanay dhahaysaa Allah wax walba saasa. Waxa uu sheegaya arrintii oo dhan iyo ficilka ay samaysay jinniyadda ushi ay wadatay ee saaxiradda ahayd, iyadana ahayd ul aad u xun. Waxaanay dhahaysaa iga aamus, aniga hadda waa inaan sameeyaa wax xun. Waxa ay ushi ku hajuumaysaa naagtii saaxiradda ahayd, gabadhii Rosa ahayd beerteedii. Beertii Rosana wax walba waa ay ka baaba'ayaan oo ubaxyadii dhan waxay noqonayaan qaar burbura. Isla markaasba Rosa waxay bilaabaysaa ilmo, waxaana u ooyeysaa beerteyda quruxda badan ee wada ubaxyada ahayd. Naagta saaxiradda dhahayso hadda balan sii aragno quruxda ay sii yeelato beertaadii. Gabadhii Rosa ahayd oo ooyeyso ayaa ilmadeedii mid ka mid a waxay ku dhacaysaa ubaxii. Isla markiiba ubaxii ayaa waxa uu soo noqonayaa mid qurux badan oo fresh ah. Rosa ayaa la yaabayso, laakiinse waxaa ka mid ahayd quwadii ay siinaysay naagtii ahayd jinniyadda. Naagtii saaxiradda ayaa yaabayso, waana xanaaqaysa, waxay noqonaysaa mid isku buuqda. Waxa u sheegayso arrinkii usheedii oo ku dhahayso gabadhani waxaa quwado badan siiyey naagta jinniyadda, waxaana la siiyey sixiro aad u badan, wax walbana oo ka mid ah beerteyda ka caawinayo. Naagta ayaa dhahayso saaxiradda ahayd jinniyadda ubaxa ah, balna mari aan wax badan ka soo ogaanay. Naagtii saaxiradda ahayd ayaa soo baxaysa, waxaana imaanaysaa dhankaas iyo beertii gabadhii ahayd Rosa. Isla markiiba beertii iyadoon cabaar jooginba waxaa soo hujuumayo ubaxyadii. Waa intay dareento naagtii xanuun ayay meesha iskaga ordaysaa, waxaanay dhahaysaa Allah waxaad tahay qof yuslisa. Saas waxaa dhahayo ushii, waxay dhahaysaa adiga maaba igu qoslay ina caayayo intay dhulku fadhifato. Waxay dhahaysaa oo ku dhahaysaa ushii hadda ii keen qorsho, haddii kale dhan waa ku gubayaan. Ushi ayaa dhahayso waxaa la rabaa inaad Rosa ka dhigtid saaxirad, dadkana been u gelisid. Caawa waa inaad soo burburisid beerta ay leedahay tuulada. Haddaad saa samaysid waxaa dhahaysaa saaxiradda saa samayn karto. Saaxiraddan waxaa ka dhigaysaa gabadha la dhaho Rosa. Arrinkaas wuxuu ku noqonayaa arrinkuu hirgala. Naagtii saaxiradda ahayd ayaa arrinkii ay u sheegaysay usheedii qaadanaysa, waxaan imaanaysaa beertii way lahayd tuulada. Beertii ayay burburinaysaa. Subaxii xigtay dadkii ayaa waxay ku soo wada kacayaan beertii oo burbursan. Arrinkiina dadka oo dhan ayuu ku faafayaa oo waxay isku dhahayeen Allah ma aragteen beertii waa la burburiyey, talow yaa burburiyey. Dadkii ayaa waxay dhahayaan talow qof caadi ah saanima samayn karee yaa burburiye beertii quruxda badneed. Xalay waxay ahayd mid wanaagsan, saakin waxaa lagu soo kacay iyadoo burbursan. Waxay dhahaysaa mid ka mid ah waxaani waa wax cajiib ah, weligeed lama arag beertani qofka burburiyey qof caadi ma aha. Isla markaasba meesha waxaa imaanayso naagtii saaxiradeed, waxaan dhahaysaa saaxiradda ay burburin karto beertani. Waxaa lama hubaan ah oo la hubaa inay tuulada isku qarinayso qof saaxir ah kaasoo rabo inuu annagana burburiyo. Isla markaasba waa ay cabsanayaan islaamihii. Warkiina waxuu ku faafayaa tuuladii iyo magaaladii oo dhan. Dadkana waxay noqonayaan qaar ka sheekeeyo sheekadan oo dhan. Arrinkii aad iyo aad ayay dadku ugu baahayaa, waxaanu noqonayaa mid dadka dhan ay xiiseynayaan. Boqorka ayaa amrayo wiilkiisii inuu soo indhindheeyo beertii. Wiilkii markuu soo gaaray amiirka ahaa beerta, waxuu arkayaa gabadhii Rosa ahayd oo abuurayso
ubaxyo cusub kuwaasay la abuurayaan shimbiraheedii. isla markiiba ubaxyadii ay soo baxaan. Gabadhii ayaa ahayd mid ubaxyada ay abuurtay ku faraxsaneed kuna qosqoslaysay say ubaxyadii u abuurtay. isla markaas ayaa waxaa cadceedii qabanaysaa gabadhii, quruxdeediina waxaa ku darsamaya qurux kale. waqtigaas ayaa faraskii u watay amiirka uu sameynayaa shanqadh. gabadhiina inta ay maqasho shanqadha Rose ahayd ayay meesha si degdega iskaga ordaysaa. meeshii waxaa soo gaarayo amiirkii la dhihi jiray Axmed. amiirkani ayaa waxa uu la yaabayaa gabadhani, waan iskaga soo tegayaa meesha waayo gabadhi waxa ay wadataa waxyaabo cajaa'ib ah. amiirkii waxa uu imaanayaa garsooraha dalkaasi ama tuuladaasi ama magaaladaasi, si walbaba waa dhihi karnaa. magaaladii garsooraheedii markuu u yimaado waxa uu dhahayaa, baryahani waxaa la sheegay in saaxirad ay dhibaateynayso magaalada, marka waxaan kaa rabaa jawaab inaa ii soo raadsid saaxiradaas. garsoori ayaa soo baxay waxaanu warwareysanayaa dadka. intii lagu guda jiray wareysigii ayaa naagtii saaxirada ahayd oo meelahaas ka qooraansanayso ayaa waxa uu ku dhahayaa usheydii, adiga waa inaad hadda ka faa'iidaysatid, waa jaaniska keliya haysatid, waa inaad u tagtid garsoorahan kuna dirtid gabadha la dhaho Rose, wax walbana ka dhaadhicisid, waayo garsoorahan waa lasoo dirsaday, waxaana soo diray amiirka, wax walbana uu kaa rumaysanayaa. markaasi dhehaysa naagta saaxiradii, waa runtaada, hadda hadduu iga rumaysto waa la xiraya naagtaas, way lagu soo sii daayana ma helayso. naagtii saaxiradeed waxay u imaanaysaa garsoorii waxaana dhahaysaa, gorseere waxaan ku hayaa sheeko ku saabsan saaxirad, laakiinse ma ogi qaaban kugu sheego waayo anuu waa cabsanaya. garsoore ayaa ku dhahayo, annaga waxaan halkan u taagannahay waa inaan adiga ku difaacnaa, marka ii sheeg wax walba aad og tahay. naagtii saaxiradeed ayaa dhahayso, garsoore waxaa jirto gabar la dhaho Rose, inkastoo la burburiyey beerta, iyada beerteed waxa waaye mid caadi siiya. haddii beertan la burburiyey maxaa beerteedii ay u sii ahaatay mid sii nool? marka waxaa kaloo ku arkay inay xakameyn karto shimbiraha, marka calaamadahaas waxay ka mid yihiin calaamadaha saaxirinta. garsoorihii ayaa arrinkii ugula sadiqay naagtii saaxiradeed, waxaana u dirayaa askartiisii gabadhii Rose ahayd inay keenaan maxkamadda. ugu dambeyn Rose waa la keenay maxkamadda, laakiinse amiirkii ayaa waxay la noqonaysaa arrintii filanwaa. waxaanu arkayaa gabadhii kusoo arkay beerta in ay tahay gabadhan la keenay. waxaa uu weydiinaya garsoorihii, garsoore ma qaldanteen oo ma waxaa soo qabateen qof qaldan? waayo gabadhan waa gabadh qurux badan, see ku noqon kartaa saaxirad? waana qof qalbi wanaagsan. garsoore ayaa ku dhahayo, boqorkaygiio gabadhan waxaa lagu hayaa caddaymo. waxa weydiinaya garsoorihii waxay ka dhihi lahayd gabadhii Rooseed. waxaa ku dhahaya saaxirad Rose, bal wax noo sheeg. Rose ayaa dhahayso, garsoore aniga waxa uma samayn, waa qaldan tahay, aniga miyay saaxirad? waxa uu dhahaya garsoorihii, waxaan hayaa qof ku caddaynaya, orod iigu yeera naagta la dhihi jiray Melanie ayaa imaanayso maxkamaddii. waa ay la yaabaysaa gabadhii Rose ahayd inay tahay qofka saan sameeyey Melanie, waxaanay ku dhahaysaa, Melanie maxaasaan igu samaysay? naagtii ayaa bilaabaysa dacwadii Melanie la dhihi jiray, waxaanay dhahaysaa, garsoore waxyaabo badan ayaa naagtan ku arkay, waana kuwa kaaga soo sheekeeyey banaanka. marka arrimahaas o dhanna waxay ka mid yihiin arrimaha saaxiibtinimada. waxa uu ku dhahay garsoorihii amiirkii, soo ma aragta hadda wax walba waxay cad yihiin? waxaa ku dhahayaa, askar qabta oo xira naagtani saaxirada ah, jeelka ku xira. isla markaasba waxa meesha soo gaarayso jiniyadii ubaxa, waxaana ay dhahaysaa, aniga waxaan ahay jiniyada ubaxa, aniga yaana siiyey quwadaasi ama sixirkaasi gabadhani la dhaho Rose. amiirka ayaa ku dhahayo, jiniyadii ubaxa ah, balna tus wax caddeynayo inaad tahay jiniyadii ubaxa. isla markiiba dhulkii iyo saqafkiiba waxay ku beertay jiniyadii ubaxa ahayd ubaxyo aad u fara badan. isla waqtigaas haddana waxaa imaaday shimbiro aad u fara badan oo soo raacay ubaxii. hadda wax walba way cad yihiin, waana u eg tahay naagtani inay tahay jiniyadii ubaxa, waana ay rumaysteen qof walba inay tahay naagtani jiniyadii ubaxa. waxaan dhahayaan, haa waa jiniyadii ubaxa. waxay dhahaysaa jiniyadii ubaxa, qof saaxir ah ma samayn karo oo ma abuuri karo ubaxyada.
qofka saaxirka saxdaana waa naagtan la dhaho Melanie. Isla markaasoo Melanie ay si dhuumanaysay ayaa waxaa ag imaanayso naagtii saaxir ahayd jiniyada, waxaanay tusaysaa dadka wejigeeda saxda. naagtii saaxiradeed Melanie la dhihi jiray waa ay xanaaqaysaa, waxaana bilaabaysaa inay hujuumto jiniyadina waa ay iyadana iska difaacaysaa. waqtigaas meesha waxaa kusoo ordayo wiilka amiirka, waxaanu kala goynayaa ushii Melaniena daciif intay noqoto eedhul ku dhacaysaa. waxa uu dhahayaa amiirkii, yaad ismooday adiga? naagtii saaxiradeed ayaa dhahayso, saan yaa idinku dhahay igu sameeye, sidee ugu dhiiratay inaad saan igu samaysiin? wiilkii amiirka ayaa dhahayo, yaa ismooday adiga? askar kaalay qabta oo jeelka geeyada. waa la xirayaa Melanie, naagtii saaxirada ahayd. boqorkiina ama amiirkii waxa uu imaanayaa gabadhii, waxaanu ku dhahayaa, tani waxay cadaalad darro, waa ka xun inaan saan kugu sameynay. waxay dhahaysaa gabadhii, mahadsanid adiga amiir. Rosaid ayaa haddana waxay u mahadcelinaysaa jiniyaddan waxay dhahaysaa, anigu waxaan keliya rabay inaan ku abaalgudo, taasna dhib male. jiniyaddiina meeshu waa iskaga dhaqaaqaysaa. amiirkii iyo gabadhii ayaa waxay isku soo yara qaadayaan jacayl, halkaasna waa isku jeclaanayaan. mar dhow waxaa dhacayo xafladda ama arooska amiirka geesiga ah iyo gabadhan la dhaho Rosa ee aad ku quruxda badan. halkaasna waxay ka sameeyeen jacayl aan weligiis la arag. sheekadani maanta halkan ayay ku dhamaatay.